بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaa ka hadlaa sakrowga iyo soomka. Mardhow waxaa arkay video oo dhakhtar soo saaray oo ka hadlayo sakrowga iyo soomka, laakiin soom oo nooc kale ah waaye, intermittent fasting la dhahaa. wax yar oo ka duwan yahay soomka anaga soomno ramadaanka. marka videoga idin daaraa, marmar waa istaajinaa, waana idin fasiraa insha Allah. marka videogan waxaa soo saaray Dr. Mike Hansen 3 bil ka hor soo saaray. marka fikradeeda idin sheegaa insha Allah videoga markaa daaro kadib. This article that read intermittent fasting completely reverses type 2 diabetes. So of course I checked it out and I wanted to see what the actual study showed, which was published here in the Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. But before we get to that study, we need a little context to understand the common thread between type 2 diabetes, metabolic health, and intermittent fasting. Tell me if you've heard this story before. Let's say we have a 45-year-old guy, we'll call him John. John is overweight and his waist circumference is 40. marka wuxuu dhahay hadda kor waxaa maqalnay in oo intermittent fasting amba soomka in oo waxa qofka sakrowga ka daaweyn karo. marka waxaa kasoo qabanaynaa oo dhahay nin la dhahayo John Yahya, da'diisu waxaa waaye 45 sano. He goes to the doctor's office and he's dhakhtarkiisoo aaday annual checkup by his primary care physician, who comments that the patient has gained 15 pounds in the last year. So the miisaankiis waxaa ku darsoomay 85 pound amba 7 kiilo camal. The doctor tells John that he should try to reduce his weight by cutting back on calories and exercising regularly. So John is scheduled for another checkup in 1 year, but by that time he gains 12 more pounds. John's doctor orders blood work, and the results show that he has elevated insulin and glucose levels and an elevated hemoglobin A1C level. Let's say that hemoglobin A1C level of 6.0%, which indicates pre-diabetes. Now the doctor again simply counsels the patient to lose weight. dhakhtarku wuxuu dhahay miisaanka iska yaree yani isoo laabo. dhiiga laga qaaday markuu soo laabtay, dhiigana waxaa laga arkay inuu cholesterolka iyo wixii inay kor u kaceen. kadibna wuxuu dhahay haddana mar labaad wuxuu ku celiyay miisaanka iska yaree. And schedules a follow-up visit 6 months later. By then, the patient's fasting glucose level is 150. The normal level would be less than 100. And his hemoglobin A1C is now, guess what? It's 6.5%, which means he's now in diabetes range. So he's considered that. kow hore markuu dhakhtarku tagay waxaa la dhahay sakrowga kugu soo socda, pre-diabetes qabtaa. hemoglobin A1C waxa waaye dhiig oo lagu ogaanayo qofka sokortiisa see ahayd 3 bil la soo dhaafay. markuu soo laabtay dhakhtarka 6 bil kadib waxaa la arkay in ay sokortiisa 150 inay aaday. hemoglobin A1C gana wuxuu noqday 6.5%, 6.5. marka taasna waxay sheegaysaa qofka inuu sokorow qabo. Based on conversations with Jennifer, the pharmaceutical company representative who periodically visits the doctor's office, well, she talks to the doctor, and now the doctor is prescribing John a new expensive diabetes drug. Let's say Jennifer tells the doctor about that new drug called semaglutide, or semaglutide if you prefer, the one that has been making headlines as a weight loss drug based on the recent study that was just published in the New England Journal of Medicine. Semaglutide is a once-weekly injection drug that causes weight loss in obese and overweight people. On average, it causes... marka dhakhtarkan wuxuu sheegaa in oo dhakhtarka oo John oo waxa uu imaaday qof oo company shirkadda oo sameysay daawo cusub oo semaglutide la dhahayo. cilmi baaris badan lagu sameeyay daawadan, waxaana la arkay qofka markuu miisaankiisa badan yahay in miisaanka ay kasoo ridayso. taasna waxay u sameynaysaa qofka in oo hadhooti sakarowga inuu ka baxo amba sokortiisa inay yaraato. daawadu waxay u shaqeysaa
qofku waxay u keenaysaa appetite-kiisa inuu yaraado marka xataa cuntada inuu cuno ma rabaayo. People to lose 15% of their body weight. Well, to clarify, the people who received this drug in the study, they also exercise and they reduce their caloric intake. So it wasn't just the drug causing the weight loss. What is excluded all people with type 2 diabetes in this study. And I'll get to why that. Problemka oo cilmi baarista ay sameynayeen waxa waaye dad oo sukrow qabo ma ku jirin ma ka tirsanaan dad waxa waaye oo cayil qabay laakiin oo sukrowna oo qabin. Has a huge significance in a bit. Regardless, the study participants who received semaglutide in this study also had greater improvements compared to the placebo group with respect to cardiometabolic risk factors, including reductions in waist circumference, blood pressure, hemoglobin A1C levels, and lipid levels. Overall, it is a pretty safe drug, at least in the short term. hadda waxyaalaha ognahay waxaa ka mid ah inay dadka faa'iido badan inay ka arkeen laakiin waxa waaye daawo cusub waaye. The most common side effects were nausea, vomiting, and diarrhea. marka dadka waxay isku arki karaan labo iyo matag amba shuban inuu ku imaado maadaama waxa qofka appetite-kiisa ka xirayso qofkan waxa waaye hadduu labo iyo hadduu isku arko waxa waaye cunto ma cunaayo miisaankana wuu ka dhacaa. It was rare that someone had to quit the study because of the side effects. Strengths of this trial. laakiin dadka badanaa dhibaato badan ma ka arkin marka waxa kulligooda badanaa way dhammaystireen cilmi baarista. Included the large sample size and the very high rates of adherence to the treatment regimen. Limitations of the study included the relatively short duration of the trial and the fact that they excluded those people with type 2 diabetes. Why is it so significant that these study participants were overweight or obese but did not have type 2 diabetes? marka daawadan waxa waaye daawo cusub waaye oo aad qaali u ah marka dadka Soomaalida badanaa ma ogo laakiin dad cadaan oo American badanaa ay warsaday daawadan in loo qoro dad sukrow qabay dad aan sukrow qabin oo rabo miisaanka inay iska yareeyaan waxay arkeen journalayaashan wax lagu soo qoray daawo cusub waa jirto oo miisaanka yareynayso amba TV-ga inay ka arkeen mar badan waa la xayeysiyaa daawadan marka hadda dhakhtarku wuxuu ka hadlaa waxay problemka oo cilmi baaristaas oo qabo oo waxa oona dadka sukrow qabin inayna ka tirsanaan groupkan. 80% of the time it's actually the opposite. First you get sick from a metabolic standpoint and then you gain the weight. In fact, 20% of obese people are in fact metabolically healthy. marka dhakhtarku wuxuu sheegaa wax muhiim ah dad badan waxaa jiro oo cayil qabo 20% oo laakiin oo caafimaad qabo dad kalena waxa waaye kow hor way jiranayaan markaas miisaana koraayo. So if you randomly put 100 obese people in a room, 20 of them will be metabolically healthy. And the medical term for this is called MHO, or metabolically healthy obesity. And because they are metabolically healthy, generally speaking, they have normal lifespans with normal length telomeres. These people have lots of subcutaneous fat, but very little ectopic fat, meaning fat in cells that shouldn't have fat. Like 20% oo cayilka qabo laakiin oo caafimaad qabo waxa cayilka badanaa waxa maqaarka hoostiisa waaye laakiin cayilka oo beerka iyo murqaha iyo korkiisa kala dhan wixii la arkaynin wuu ku yar yahay. Like liver cells. They also have normal metabolic function and low insulin levels. korkooda insuliinku wuu ku yar yahay. What is metabolically healthy and what is metabolically unhealthy? Metabolically unhealthy is low insulin level markuu dhahay insuliinka markuu ku yar yahay waxaa laga wadaa dadka qaarkood waxa waaye markay sukrowga type 2 markuu ku dhacayo amba sukrowga nooca labaad insulin badan oo korkooda sameynaa laakiin insulinkaas waxba ma u taraayo insulinkaas badanna waxaa sababayo sokorta badan oo jirkooda ku jirto amba dhiigooda ku jiro marka mar walba soo pancreaska meesha insulinka oo sameeyso markasta insulin soo deynayo markii dambe insulinkaas badan waxba ma u taraayo qofka markaas sukrow ku dhacayo marka wuxuu dhawayaa 20% kan oo cayilka qabo
oo cayilkooda maqaarka hoostiisa oo yahay insulin badan korkooda ma ku jiro oo sida dadka sokorowga qabo kala camal. Fat that is stored anywhere outside of fat cells is called ectopic fat. So if the muscle or liver or even the pancreas end up storing ectopic fat, guess what happens? Those tissues develop metabolic dysfunction and they start to malfunction. marka dufinta fatka hadoona oo ku keedmaynin unugyada oo maqaarka hoostiisa wuxuu kaloo aadaa beerka iyo murqaha iyo pancreaska meesha insulinka samaynayo marka hadhowtiin qofku waxaa ku dhacayo cuduradan sida sokorowga kala camal. About 80% of overweight and obese people were metabolically unhealthy. They didn't gain the weight and then become sick. They became metabolically ill first as a result of developing high insulin levels, which led to insulin resistance, and that's what caused the weight gain. But since their fat cells still responded to the insulin, despite most of the cells in the body being resistant to insulin, well, that means that the extra insulin told those fat cells to store more energy, so those fat cells got bigger and bigger. And what if you're not overweight or obese? Let's say you're thin. Well, if you're thin, that must mean that marka korka jikaya markuu ka bato fatka pancreaska meesha oo waxaa oo insulinka soo saarayso insulin badan oo soo deynaya kadibna unugyada oo fatka oo dufinta ku jirto way weynaanayaan marka qofkan waa cayilaa. That you're metabolically healthy, right? Not necessarily, because thin people can be tofu, thin on the outside, fat on the inside. hadda wuxuu ka hadlayaa dadka oo waxa caatada ah oo laakiin gudaha jirkooda gudahay ka cayilan yihiin marka tofu yaa lahaa thin on the outside kor khaliir waaye ama kor caato waaye and fat on the inside. Fat waxa waaye dhexda gudahay ka cayilan yihiin. In fact, 40% of normal weight people have TOFI, which is to say that they have some degree of metabolic dysfunction. boqolkii 40 qofka dadka caatada ah waxa cayilkooda waxa waaye gudaha ku jira. Insulin resistance and high insulin levels. But for whatever reason, they're just not obese. Now, in some of them, their fat cells are in fact insulin resistant, so energy isn't really stored excessively. marka maadaama oo cayilka gudaha uu jiro sida dadka cayilka qabo kala camal pancreaskooda insulin badan oo soo deynaa marka hadhowtiin insulinkaas badan wax ma taraayo waqti marka kasoo wareegato. In the subcutaneous tissue. Now, why some people have fat cells that are more insulin resistant than others? That remains to be determined. So where does that excess energy go? waxa qofka oo keena inuu cayilaan baa organs that shouldn't be storing fat, like liver, muscle, and sometimes pancreas. So what you really want to pay attention to is the degree of ectopic fat inside the body, which is of course the fat that you can't see because it's on the inside. So the people marka labada group wuxuu cadeynaa in muhiim tahay cayilka oo gudaha oo ku jiro inoo yaraado cayilka oo beerka galayo iyo murqaha korkiisa iyo waxaas inay yaraadaan la rabaa soo hadhowti qofka oo caafimaadkiisa problem u keeno. Study who received semaglutide who were all overweight or obese and none of them had type 2 diabetes. It's likely that most of them, if not all of them, were MHO, metabolically healthy obesity. So the bottom marka wuxuu dhahayaa dadkan oo ka qayb gala cilmi baarista daawada cusub waxa maadaama aynu ku jirin qof oo sokorow qabo waxaa dhici karto in ay dadkan yihiin dadka cayilka maqaarka hoostiisa loo ku jiro oo gudaha cayilku adaga jirin. Bottom line is you can't always tell if someone is metabolically healthy or not by simply looking at them, because if they're thin, they may or may not have TOFI, and if they're obese, they may or may not be MHO. But getting back to John, whether he's prescribed semaglutide or metformin or whatever drug to try to improve his type 2 diabetes, is that really fixing the underlying problem? Well, no, because marka John hadda soo laabano daawada loo qoro sokorowga uu qabiyaa John laakiin daawo kasta loo qoro waxa waa sokorta ka yareene laakiin problemka wax sababay marka daaweynaysa marka taas inaa ogaano waay dhakhtarka wuxuu dhahayaa maya. Drugs aren't going to fix the root cause of the problem. The root cause of the problem
is eating too much of the unhealthy foods and not enough of. marka the root cause waxa waaye wixii sababa waaye qofka inuu sukaro ku dhaco hadda masawiradaana u jeediin waxa waaye cuntada badan Mareykanka ee laga cuno iyo dibadda waxa ku jiro hamburger iyo waxa fries batatigan la dubay iyo coca iyo waxyaalo sokor ku badan yihiin marka badanaa dadka waxa u keenayo sukarooga iyo cayilka badan oo cayilka xun oo gudaha ku jiro waxa waaye cuntadan oo qashinka la cunayo. Of the healthy food. In other words, eating too much processed food because it's the processed food that has all the added sugar and carbohydrates, which is the main driver of high insulin levels and insulin resistance. Exercise helps as well because exercise stimulates the enzyme AMP kinase and you end up improving insulin sensitivity. hadda wuxuu ka hadlayaa qof exercise sameeynaayo marka qofku markuu jimicsi badan ama aalmiinta badan markuu sameeyo korkiis insulinkaas badan waxa pancreas sameynayo xogaa oo soo yaraana markaas kadibna cayilkan waa ka yaraana. And then there's the other thing that also stimulates and improves insulin sensitivity, and that is intermittent fasting. In fact, when you look at the biochemistry and the physiology and the health benefits of exercise and compare that to intermittent fasting, they're virtually identical. marka wuxuu dhahoyaa dadka oo soomayo amba waqti badan oo cunto iska joojinayo waxaa la arkay in ay isku mid yihiin qofka exercise-ka badan oo sameynayo. Both of these stimulate autophagy where the cell repairs itself, and both of these stimulate mitophagy where the mitochondria are replenished. Cells increase the number and marka unugyada oo waxa oo dhaawac gaaro maadaama qofka cunto fiican cunaynin waxa cayilka markuu ku badanayo unugyada oo dhaawac gaaro way is sameynayaan amba way weeraysanayaan mitochondria waxa waaye unugyada dhexdooda waxa ku jiro meesha energy-gana ka imaanayo marka mitochondria waa badanaa marka qofku wuxuu guba energy badan oo guba maskorta iyo cayilka iska guba. Size of mitochondria. When people exercise and they do intermittent fasting, either one, but especially synergistically, cells increase the number and the size of mitochondria. You're only as healthy as your mitochondria, and that's really what it boils down to. So, what does intermittent fasting do to someone with type 2 diabetes? Well, when insulin binds to its receptor on the surface of a cell, it normally stimulates the glucose transporter proteins in the cell membrane. The glucose transporter proteins move glucose from the outside of the cell to the inside, where the cell can then use that glucose to make ATP. Remember, it's the marka dhakhtarka wuxuu ka hadlayaa haddana qofka markuu insulinka oo dhiiggiisa oo pancreas kusoo deeyo markuu kusoo shubo sokorta dhiiga ku jirtay sida fura camal waaye marka unugyada oo fura erid glucose-ka ama sokorta ay ka geli karto so hadhowti unugaas oo isticmaali karo sokortaas oo qofka energy ooga heli karo. Mitochondria that are making that ATP. Now, in someone with type 2 diabetes, insulin binds to its receptor, but the receptor is unable to stimulate glucose transport. qofka sukaro markuu qabo insulinka pancreas waa soo deynaa wax badan oo soo deynaa laakiin insulinka waxa waaye sokorta unugyada irida ma u furaayo sida waxa amal qofka qufulka iyo furaha oo laga bedela amal waaye marka insulinki waa badan yahay laakiin waxa unugyada ma isticmaali karaan sokortaas badan oo dhiiga ku jirto marka qofka sokortiisa kore u kacay. Because blood glucose levels are abnormally high in this case, the pancreas produces more insulin. So patients with type 2 diabetes have elevated amounts of insulin in their bloodstream. Type 2 diabetes, it used to only affect adults, but now it's becoming increasingly common in children, or at the very least adults. marka insulin badan jiro oo qofka korkiisa ku jiro laakiin waxba ma u taraayo ebalna type 2 diabetes waxaa lagu arki jiray dadka waaweyn laakiin hadda especially Mareykanka waxaa
ilmaha yaraya cayilka badanooyo insulin badan ay korkooda sameynaya hadda marka dad badan waxaa jira ilmo badanaa jiro hadda oo sukaro type 2 lagu sheegayo evel type 1 amba nooca koowaad ku dhici jiray ilmaha type 1 waxa waaye qofka jirkiisa difaaciisa waxa attack gareynayo amba waxa weerar ku qaada pancreaska meesha insulinka sameynayo marka qofkaas insulin dhan ma sameynayo type 1 diabetes qofka markuu qabo ama sukarowga nooca koowaad qofka korkiisa insulin dhan ma ku jiro marka qasab waa inuu insulin isku daro. It's been well established in numerous studies that type 2 diabetes can be prevented and even reversed with exercise and improving the diet. So laakiin type 2 diabetes waxa waaye qofka hadduu exercise sameeyo amba dietka cuntada cunaya hadduu ku dadaalo waxaa sukarowga waa ka bixi karaa. So the results of the recent randomized controlled trials suggest that intermittent fasting is also highly effective in restoring the cell's ability to respond to insulin, meaning making it more sensitive, thereby reducing the risk of diabetes and even reversing type 2 diabetes in some cases. In a randomized controlled trial in Australia. iyo waxa kale cayilka kaliya ma ahan waxa faa'iidada exercise iyo dietka oo qofka helayo pancreaska xataa insulinka oo sameynayo korkiisa markii dambe wuxuu sababa in sokorta oo ka bixiyo dhiigga sida waxa camal waaye haddana haddaa soo qabana furaha iyo qufilka oo kale camal qofka markuu exercise badan sameeyo oo diet cunto fiican oo cuno oo miisaanka iska yareeyo insulinka korkiisa ku jira oo badnaayo oo ewl wax u tari waaye haddaba u shaqeynaa insulinkaas unugyadii wuxuu sababaa in sokorta dhiigga ay ka bixiyaan ay ka nadiifiyaan sokorta dhiigga markaas way yaraane qofkan waxa waaye sokorta way ka bixi kartaa markaas. Australia, 63 patients with type 2 diabetes who did the 5-2 intermittent fasting for 3 months demonstrated significant reductions in hemoglobin A1C levels, although it takes at least a few weeks to see that improvement. Even for the wuxuu ka hadlayaa dad Australia oo degan oo isku dayeen inay soomaan ambo waqti badan cunto ayna cunin marka dadka muslimiinta aan ahaan markay dhahayaan waa soobaynaan waxa weli biyo way iska caboyaan laakiin cunto la'aan ay joogayaan waqti badan marka dadkaas waxaa lagu arkay in sokortooda ay yaraatay sokorowga oo ka baxay laakiin waxay qaadan kartaa ilaa 3 maan camal inuu qofka faa'iidadaas oo iska arko. Those who won't exercise or can't exercise, intermittent fasting still can improve and normalize their ability to keep glucose and insulin levels within normal limits. So in this marka hadda exercise iyo dietka daa la isku fiiriyo exercise-ka dad waxaa jira oona samey karin meelta badan amba jimicsi badan oona samey karin marka exercise iyo diet marka la isku fiiriyo waxaa jiro dad oo exercise oo samey karin amba dhib ay ku tahay laakiin cuntada waa la iska yaray karaa qofka markuu cuntada iska yareeyo faa'iido badan oo ku arkaa hadda wuxuu natusoyaa warqad waxa lagu soo qoray journalkan Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism waxaa qoreen dad oo ku takhasusay sokorowga iyo cudurrada oo ka imaan karo cayilka iyo korka soo shaqeynayo marka waxaa la effect of an intermittent calorie restricted diet on type 2 diabetes remission randomized controlled trial marka waxa waaye waxay fiirinayeen qofka hadduu cuntada haloo cunayo hadduu iska yareeyo iyo sokorowga nooca labaad hadday ka celi karto randomized controlled trialna waxa waaye cilmi baariska kuwa ugu sareeya waaye marka qaab fiican ay u sameeyaan. Context in mind, this study just came out. There were a total of 72 people in this study. The study participants were between the ages of 38 and 72, and they all had type 2 diabetes, anywhere from 1 year to 11 years in duration. marka dadku waxay jireen da'dooda 38 ilaa 72 kulligoodana waxay qabeen type 2 diabetes. They were also randomly allocated based on the anti-diabetic medications, including those who were taking insulin.
So half of them went into the control group, and then the other half went into the treatment group. kulligooda daawo waxay qaadanayeen oo sakarooga nuska nus waxaa laga dhigay dadka oo cuntada laga yareynayo nus kalena waxaa waaye cuntada si normal ay cunayeen. Which was the intermittent fasting with caloric restriction group. They called this group the Chinese Medical Nutrition Therapy. 36 people in each group, and the primary outcome was diabetes remission. So they wanted to see if this could reverse. Group kasto amba qayb kasto waxaa ku jirtay 36 qof waxayna fiirinayeen waxa sakarowga qofka hadda laga daawey karo cuntada qofkaas cuntada laga yareynayo sakarowga qayb kasta waxaa ku jirtay 36 qof waxaana la fiirinaya qofka hadda sakarowga hadda ka fiicnaanayaan. And they defined that as having a hemoglobin A1C level of less than 6.5% for at least 3 months after stopping all anti-diabetic medications. The secondary outcomes included kooga waxay fiirinayeen qofka cuntada laga yareynayo hadduu daawada sokorta dee ka yareynayso hemoglobin A1C-ga 6.5% 6.5 waxaa waaye boqolkiiba 6 hadday sokorta dee ka yaraanayso kooga waxay fiirinayeen haddii oo qofka oo cuntada laga yareeyo oo sokortiisa ay fiicnaato marka daawada laga joogo ilaa 3 bil kadib waxaa daawo la'aan ma joogi karaan. Hemoglobin A1C levels, fasting blood glucose levels, blood pressure, weight loss, and quality of life. They also did a 12-month follow-up to assess the continuation of remission. In other words, 1 year later, were they still in remission? So here's what they found. 17 out of the 36 participants in the treatment group, so 47%, achieved diabetes remission. Groupka oo cuntada laga yareynayo boqolkiiba 47 waxaa sokorta waa ka yaraatay. Compared to just one person in the control group. dadka cuntadoodana oo loo fasaxay boqolkiiba 1 le cuntada ay sokorta ay ka yaraatay. The average body weight of participants in the CMT group, so the treatment group, was reduced by 6 kilograms, about 15 pounds, compared to just less than 1 pound in the control group. Groupka cuntada laga yareeyay waxaa ka dhacday 85 kilo. 15 out of the 36 participants in the treatment group, so 47%, achieved diabetes remission compared to just one person in the control group. The average body weight of participants in the CMT group, so the treatment group, was reduced by 6 kilograms, about 15. Groupka oo cuntada laga yareynayo 6 kilo ka dhacday. Groupka oo cuntada loo fasaxayna waxaa 1 kilo xataa ma ka dhicin. Compared to just less than 1 pound in the control group. After the 12-month follow-up, 44% of the participants continued to stay in remission with a hemoglobin A1C level of 6.3%. Marka cilmi baariska la joojiyay sanad kadib waxaa la arkay in dadka cuntada oo iska yareeyay boqolkiiba 44 weli sokorta ay ku soo laaban. Not to mention the medication cost of the treatment group was 77% lower than that of the control group. And here are some other huge takeaways from the study. Almost 90% of the participants, including those who were taking anti-diabetes medications, those who took insulin, they reduced their diabetes medication requirements after doing the intermittent fasting. 55% of these people experienced diabetes remission, discontinued their diabetes medication, and maintained that for at least 1 year. Marka dadkaas oo sokorta jirkooda ka baxday daawo ma u baahneen boqolkiiba 55 kuwa cuntada laga joojinayo waxaa ma u baahneen daawo. And results of this study challenge the conventional view that diabetes remission can only be achieved in those with a shorter diabetes duration, typically defined as 0 to 6 years. Well, marka wuxuu kaloo sheegaa muhiim ah dadkan oo ka qayb gala cilmi baarista dad waxaa jira oo sukrow 1 sano camal la qabay dadna waxay muddo dheer sanooyin badan ee sukrow qabeen
kulligoodana isku halay ahaayeen markii oo cuntada iska yareeyaan sokorta way ka baxday marka qofka hadduu muddo dheer xitaa sokorow hadduu qabay waxaa sokorta way ka bixi kartaa hadduu ku dadaalo cuntada inuu iska yareeyo iyo aalmiinta badan hadduu sameeyo marka taasna waxa waaye muhiim waaye cilmi baaristanna waxa waaye nooc oo ugu sareeya waaye marka la isku fiirinayo cilmi baarista kale oo la sameeyey oo sokorow ku saabsan dadkii oo cuntada laga yareynayay iyo dadka cuntada laga yareynaynin oo cuntada loo fasaxay waxay hubsadeen in qof kasta miisaankiisa da'diisa wax kasto in waxaa isku hal inay ahaayeen soo hadhowtii aana loo dhihin dadkan oo cuntada loo fasaxay ebalba waxa waaye way ka duwanaayeen dadkan kale oo cuntada laga yareynayo marka xataa journaalkan ma lagu soo qori lahaan hadday cilmi baarista si fiican haddaan loo sameyn lahaan 2/3 of those who achieved diabetes remission in this study actually had diabetes for more than 6 years. So that's pretty impressive. boqolkiiba 67 dadka oo sokorta oo ka baxday ugu yaraan amba dhexaad average waxa waaye haddaa la isku keeno sanooyinka ay sokorow qabeen badanaa dadka 6 sano ay qabeen sokorow. It just goes to show that it really boils down to doing things that decrease those insulin levels and improving insulin sensitivity. So it's well known that a healthy diet, regular exercise do these quite well. And that's why they're essential for diabetes control. And now we have evidence that intermittent fasting can do the same and even reverse type 2 diabetes. marka videogan intaa ku ekeenaa Dr. Mike Hansen wax fiican oo noo sheegay anigana waana ogeyn laakiin marka si fiican oo lagu fasiro waxa sokorta jirkaaga dhaawac u gaarsiinayso iyo wixii lagu daaweyn karo oo waxa kamid yahay exercise-ka iyo diet-ka especially cuntada because dad badan waxaa jiro exercise samey karin ama korka xanuunaya ama da'dooda ay weyn tahay laakiin cuntada iska yarey karo oo hadhowtiina faa'iido badan ka arki karaan dhinaca sokorowga iyo dhiig karka xataa iyo miisaankooda waxaa kaloo ku dari lahay sokorowga xididadoo dhaawac gaarsii karaa waxaana imaan kara qofka inuu wadna xanuun ku imaado amba stroke inuu ku dhaco iyo kelyahana dhaawac inuu gaarsiiyo marka waxyaalaas badanaa laga hortegi karaa qofka hadduu ku dadaalo exercise-ka iyo diet-ka especially diet-ka soonka xataa qofka hadduu soomi karo isniin iyo khamiis amba 3 beri ayaan beydka hadduu soomi karo waxaa faa'iido badanaa ku jirto marka taasna waxaynu caddaynayno diinteena waxaa caafimaad leedahay insha allah waxaa idin rajaynaa ramadaan mubaarak iyo ciid mubaarak asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu